had iyo jeer waxa ay ku howlan yihiin qaar ka mid ah dhalinyarta gobolka Sanaag sidii loo dabargoyn lahaa qabyaalada maanta oo lagu qabtay hotel Sanaag ololaha ciribtirka qabyaalada oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Ceeriga halkaas oo lagu soo marti sharfay ururka Sooyaato iyo madax heer degmo iyo heer gobol boqorro cuqaalo iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyntii ka hadlay mid ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Ceeriga kaas oo ka hadlay munaasabada ololaha ciribtirka qabyaalada dalka Soomaaliland oo idin meel kasta walow aynu nahay gobolkii labaad ee hawsha tan laga hirgeliyo oo kulan noocan oo kala uu ka bilaabmo Hargeysa bayna ka horeysay oo buddigiisu ahayd oo haldoorkii hawsha tan bilaabay uu joogay waxa ugu horeyn xusid mudan wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda qorsheynta Cabdikariin Axmed Mooge oo hawsha tan bilaabay dalkana ka bilaabay ololahan walaalayaal haddii aan faahfaahin idinka siiyo waxa u siman yihiin bulshada dhammaan qaybaheeda kala duwan haddii nahay reer Sanaag cid walba dhalinyaro waayeen cid kastoo qabyaaladiida hawsha tan waa u furan tahay iyagana sidoo kale u mahadcelinayaa bahda saxaafadda gaar ahaan weliba kayga markaan ka tago labada TV ee kale ee Somali Channel iyo Somali Cable oo kaalin mugla ka qaatay baahinta muuqaalkan quruxda badan iyo qabsoomida xafladda in dadkii ka marnaa ku dhaqanka qabyaaladda haddaynu halkaas ku dayno inaynu qeexno qabyaalad kulankan maanta aynu qabanay mid iyo laba kuma soo koobi karayno waxaana la ilaawi karin oo madashaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hurre iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Dawaare ahna milkiilaha hotel Sanaag maanta farxad weyn bay tahay inaan ururkan iyo dhalinyaradan reer Sanaag hostel reer Ceeriga maanta halka jooga ee ka hadlaya aafadaas ay ugu weyn tahay qabyaaladu aad iyo aad baan soo dhaweynaya aad iyo aad qayb ka waxa uu faksana waxaan insha Allah aan noqonaya hormuud baan ka noqonaya hawsha dhalinyaradu wada iyo wanaagga ay wadaan hormuud baan ka noqonaya markasta oo ay wadaana waxa weeye waan garab taaganahay insha Allah waxaan ugu faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay inaan idin soo qayb galo markay ii sheegeen dhalinyartani in waxa mowduuca laga hadli doono oo noqonayo qabyaaladii laakiin mar walba waxaynu isweydiinaynaa war maxayna taraysaa maxayna tartay waxaynu balka faa'iideyno qabyaaladda inagoon gobollo kale dee run ahaantii uu mahadsan yahay inankan wasiir ku-xigeenka soo abaabulay noqona mayso kii ugu dambeeyey insha Allah wuxuu noqon doonaa kii ugu horreeyey waxaan u qaybiyey waa laba two parts waa qabyaalad qofku hadduu ku dhaqmo qaran ku noqonayo isaga ehelkiisa iyo ummadduba iyo qabyaalad qofku hadduu ku dhaqmo uu ku noqonayo aanu horumar la gaarin waxa wax lagu bedelaa waa dhaqan waxa wax lagu bedelaa waa diin waxa wax lagu bedelaa waa isku xidhnaan qabyaaladiina aydiga ma taqaanid aad leedihiin qabyaaladiina ha noqoto qofka aad classmate ka tihiin dugsi malaha qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waa Muxsin Maxamed Siciid telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Ceeriga